idin salaamay cawada cashirkeena waxaa waaye psychology level maxaa waaye maxaa la dhahaa psychology level waa tirooyinkan geesahan noogu muuqdo ka mid ah oo maaragtay tirooyin waxaa jiro oo khaas ah geesahan ka tirsan laakiin tirooyinkaas sidee ku ogaanaa waa akheere marka waxaa ku ogaan doonaa qaabab goonino ah xafladooyin marka tirooyinkan example waa tirooyinka psychology level dhahayo waaye oo psychologicalka bini'aadinka mar walba wuxuu jecel yahay maaragtay tiro isku dhegin ama cayiman example oo kale tiro haddii lagu dhaha ka waran $10 $100 $1000 mugtahay waxaa waaye oo macquul ah example oo kale 1349 waa tiro iska caadi ah laakiin tiradan oo kale waa tiro maaragtay nadiif ah oo toosan waaye taas micnaheedu waxaa waaye waxaa jiro example oo kale tusaale 0.84000 example oo kale tiradan waa bangiga lacagahooda ma ugala baxayaan markuu maraayo oo kale maaragtay 0.39994 markaan oo kale ma jeclo bangiyaasha ama qolada maaragtay maalgashiga weynka ku leh forex-ka inay kula baxaan tiro noocan oo kale ama ay ku maalgashtaan qiimaha markuu marayo tiro noocan oo kale maya iyaga system ay ku shaqeeyaan systemkoodana waa tirooyinka nadiifka ah oo dhabanka ama tirooyinka quruxda badan ay jecel yihiin maaragtay ama psychological levelka waxa uu magacaabno ay jecel yihiin inay maaragtay markuu trade-ka ama price-ka maraayo inay ku galaan ama ugula baxaan price waxay ku qorteen waaye mashiinkooda oo maaragtay hadhowtii suuq markuu gaaro price-kaas automatic ay ugu baxayaan ama automatic ay u maalgashanayaan waqtigaas marka waa saas example marka psychology level maxaa waaye psychology levelna intee loo baahan yahay okay psychology levelka waxaa loo baahan yahay in laga dhex helo gudaha area of interest-ga dhexdiisa area of interest-ga dhexdiisa inaad ka heshid waaye psychology level haddii uu area of interest ka hooseeyo ama haddii uu ka koreeyo area of interest-gaas psychology levelkaas valid ma aha ama ma xisaabsan doontid waa iska tirtiri doontaa waxaa xisaabsan doontaa bis marka uu maaragtay psychology levelka uu ku dhex jiro area of interest-ga markaas oo waqtiga xisaabin doontid number 2 psychology levelka marka waxaa waaye oo number nooce waaye number nooce waxaa waaye maaragtay inta idin ku qori doonaa 3 inay u dambeyso waaye psychology levelka ama inay u dambeyso waaye 500 3 ama 3 eber ama 500 loo dambeyso waaye markaas uu psychology levelka yahay psychology level oo qiimo leh ama valid ah tusaale intoo kale hadda waxaa rabnaa psychology level inaa area of interest-ga ka dhex raadino okay psychology levelka line-kaas soo qabanaynaa waa ku tuuraynaa meel laakiin mar walba fiiri maaragtay loo click aku dhufanayna double click coordinates meel dhahaa tagaynaa tiradan hadda saddexdeena tiro ugu dambeyso intee u dhowdahay 3 eber may u dhowdahay ama 500 u dhowdahay 421 mar haddaa joogtid 500 u dhowdahay marka aad tirtirno 500 aa ku bedelna marka 500 ku dhufano meesha waa isbedeli doontaa automatic 500 area-deeda 0.90 500 area-deeda ee automatic u tagi doontaa mujidi waa isbedeshay buluugan hadda u jeedaa 0.9 055500 okay psychology level waa ka haysanaa area of interest-ga dhexdiisa psychology level ka dhex aragnay taas macnaheedu waxaa waaye confluenceskan ayaa waxaa kusoo darsan doonaa psych level waxa la dhaho psych level waa 5% mujidin
psych level waa 5% markaa ka dhex heshid area of interestigaaga dhexdiisa. haddii kan uu ka baxsanaan lahaa area of interestiga meelahan oo kala fiir hadda psychology level a meelahan ku jiro sida ujeedid, laakiin 12 saddex eber u dhow yahay, saddex eber. okay meeshaan waxaa ku jiro 0.91000 laakiin area of interestigayga ma aha oo ku koreeyaa aad ugu sareeyaa. marka taas micnaheedu waxaa waaye kan waa iska tirtiraa, micno ma leh, waa eber, waa faa'iido ma leh waa. laakiin markii oo psychology levelka ama psych levelka oo ku dhex jiro gudaha area of interestiga qiimihiisu waa 5%. area of interestiga inuu yahay area adeeg badan uu caddeynaa, uu caddeyn ka yahay ama markhaati u yahay. marka akhyaari waxaa jeclaan lahaa inaad psychology levelka fahanteen. insha allah adiga casharooyin cusub markaan dhigno kadib hal cashir waxaa jiri doono oo ah isku xirka maaragtay waxaa soo barnaa dhan aa isku xiraa. 2 cashir 3 cashir isku xirka wax dhacaya jiro oo maaragtay isku wada xiraayo wixii maaragtay aa soo barnaa idin. marka waa kaasa akhyaari cashirkan waa cashirkii 10aad psychology level aan dhiganay. psychology level inaa fahanteen oo malana madaxiina maaragtay gishta psychology levelka waa 2C ama 3 eber ha u dambeyso ama 500 ha u dambeyso, markaas uu yahay area psychology level oo qiimo leh. waxaa labadan ahaynin psychology ma 600 iyo 100 iyo 200 iyo 300 iyo 400 iyo 700 iyo 800 900 iyo waxaas ma ah psychology level. psychology level waa 3 eber ama 500 bas. marka inaa fahanteen arjina khayrta macnaha tirada 500 waa inay u dambeysaa line markaa soo dhigtid saana dhehe example meelahan askaaga tuure line waa galnaada. haddii marka waxa inta u dhow 268 iyo 500 aa weli u dhow, laakiin hadda tusaale ahaan marka 3 eber dhehnaa kuwa 2 3 aan caarina fiiri area of interestigana wuu ku hooseeyaa, aad ugu hooseeyaa. marka 500 marka aad ka dhigno ka waran fiiri wuu ku dhex jiraa. haddii marka lacala aa ka dhigno 91 3 eber wuu ka sareeyaa, aad ugu sareeyaa. marka taas micnaheedu waxaa waaye 500 waaye psychology runta ah oo area oo interestigan leeyahay. marka akhyaarey waa kaasa 500 ina u dambeyso waa tirada ama 3 eber. xisaabta caadiga ah oo line-ka ah wixii rabto geeska ka xigo dhib ma leh, laakiin 3 u dambeyso inay noqdaan waaye 500 ama 3 eber insha allah. saddex eber ama maaragtay 4 eber xitaa waa isku mid. 3 eber 4 eber iyo 500 waa isku mid. marka khayr insha allah inaa fahanteen arjina psychology level macnihiisa iyo waxa laga wado maaragtay waa kaasa. ha wanaagsan.